Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkani waa Sky 24 TV. Haddaba daawadayaal caawa barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa doorashadii ka dhacday dalka Mareykanka, taas oo ay naawilayeen dad badan oo psychology ah amase baahi weyn u qabay gelitaanka dalka Mareykanka. Hore madaxweyne Trump waxa uu xayiraad saaray wadamo 7 ah oo ay ka mid ahaayeen dalka Soomaaliya. Haddaba Soomaali badan ayaa waxa ay rajeynayeen in wadamo kale oo ku jiray xayiraadan, kuwaas oo aad u taageersanaa musharaxa dimuqraadiga ah, musharaxa labaad ee Biden. Haddaba guusha uu gaadhay Biden oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii u horreeyay ee madow ah Barack Obama. Guushan ayaa waxaa laga dareemayaa dhammaan caalamka, maadaama dalka Mareykanku uu yahay dal superpower ah, kaas oo siyaasadda caalamka in badan saameyn ku leh. Trump oo ahaa nin aad u adag oo xag jir ah, aadna u neceb soogalootiga, ayaa 4 sano uu dalka xukumayay waxa uu cidhiidhi iyo diiqad geliyay dad badan oo ajaanib ah oo ku nool dalka Mareykanka iyo qaar rabay inay helaan gelitaanka dalka Mareykanka. Haddaba tan ayaa noqonaysa Joe Biden, maadaama uu ololihiisii ku ballanqaaday in dhammaan xayiraadahaas la qaadi doono, mid rajo weyn u abuuraysa dad fara badan oo raba inay nolol ku qaataan dalka Mareykanka. Haddaba daawadayaal, barnaamijkeenan aan ku eegaynay arrimaha doorashada dalka Mareykanka oo haatan uu ku guuleystay Joe Biden, intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.